danjiraha Soomaaliya oo fadhiya wadanka Kenya Maxamed Cali Nuur Ameeriko iyo wakiil ka socday wasaaradda waxbarashada oo maanta shajaraad ku qabtay xarunta safaaradda ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in 81 arday oo ku nool Nairobi kuna guuleystay imtixaankii dhawaan ay qaaday wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ay heleen deeq waxbarasho oo ah dalka dibadiisa. safiirka Soomaaliya ayaa sheegay in ardaydani oo ay ku jiraan 31 arday oo ka yimid xeryaha qaxootiga ee Dadaab kuwaasi oo dadaal dheer oo ay safaaraddu samaysay ku helay fursadahan waxbarasho ay dhawaan bixi doonaan. waxa uu sheegay danjiruhu in arrintaasi ay tahay mid dhiirigelinaysa Soomaalida ku qaxay dalka dibadiisa. ogtihiin 14 July sanadkan waxaa imtixaan u fariisay safaaradda Soomaaliyeed gurigeennii aan ku leenahay halkan oo aan soo ceshanay 320 arday oo ka kala yimid iskuulaad ka soo baxay iskuulaadka waddanka Kenya, Nairobi, Mombasa, Eldoret, xeryaha qaxootiga Dadaab, Kakuma. imtixaankaas oo lagu qabtay safaaradda kaas oo ahayd markii anaga ka safaarad ahaan oo aan u doodnay ardayda Soomaaliyeed ee ka soo baxday xeryaha qaxootiga gaar ahaan iyo kuwa waddanka Kenya gudihiisa oo la'aa inay scholarship helaan ama jaamacad aadaan awood u la'aa doodii aan mataqaana cusub ka cusub dawladda ku meel gaarka gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ayay ku timid in la ogolaaday in lagu qaado imtixaanka halkan. imtixaankii markii la qaaday oo waxa ku guuleystay ama helay ku barmoosay ku baasay imtixaankii arday gaarayso 90 arday oo ah kuwii u fariistay imtixaanka 31 kamid ah waxay ka yimaadeen xeryaha qaxootiga Dadaab iyo Kakuma. aad iyo aad baan anaga ugu faraxnay uguna faraxsanahay in ardaydaas oo qaxootiga ka soo baxday dugsiga ka soo baxday anagoo xaalka ku jiraan ayagoo qaxootiga oo dhib haysta in dugsiga soo dhameeyaan haddana mataqaan aan dhihi karo nus kamid ah intii u fariistay intii ku guuleystay imtixaankii ay iyaga noqdaan. hadda markii ay heleen waxaa hadda soo baxday oo aan ka helnay dawladda ku meel gaarka ee heshay scholarship ay ka heshay wadamada Sudan iyo Turkey. hadda Sudan ugu soo horeyso ardaydii imtixaanka ku baasay halkan kaliya ma ahayn sababtiin imtixaanka waxa lagu qaaday kale wadan gudihiisa Xamar Puntland gobolka Puntland intii la helay scholarship-ka waa la qaybiyay. hadda anaga waxaa ku soo aaday ardayda ku baastay Kenya waxaa ku soo aaday hadda 21 arday in ay aadaan scholarship u aadaan wadanka Sudan. anaga haddaan nahay safaaradda waxaan waajib nagu ah inaan u fududeyno si ay ku bixi lahaayeen iyo dokumentiyadooda baasaboorada shaleeto badankooda way xareysteen kuwa kale insha Allah wax jecelna maanta inay iyagana xareystaan. waxaan u ballan qaadaynaa in 2 maalmood gudahooda in lagu keeno baasaboorada si viisooyinkii iyo loogu xareeyo waqtiga kaga Maxamed Cali Nuur Ameeriko ayaa sheegay in safaaraddu ay si bilaash ah ardayda qaxootiga ah ugu sameyn doonto baasaboor iyo dhammaan dokumentiyada ay ku safrayaan maadaama aysan awood u lahayn inay iska bixiyaan. waxa uu sheegay safaaraddu in arrintaasi ka kaashanayso dawladda dhexe ee wadanka. aniga waxaan aaminsanahay horta midka baasaboorka oo ayaga qaar bixinin dan safaaradda Soomaaliyeed ee Kenya waxa ka cadeynaya inta bixisay lacagtooda waa loo celinaa intii kale aan bixinina waxa lagu siinayaa baasaboorada lacag la'aan. aniga hadda fan igama aha laakiin waxaan aaminsanahay inaan avocado am lawyer aan u ahaa oo sidoo uu sheegay Mawlid oo sheegay markii ugu horeeyay aan xeryaha qaxootiga Dadaab oo ardayda ay la hadleen waalidooda ay la hadleen qaarkoodna iskuulada dugsiga ka baxay ilaa muddo 4 sano ama 3 sano dawladda joogay ayay dhibtay ayay ahayd keentay inaan kala hadlo dawladda ku meel gaarka oo aan dhaho xaq ayay ku leeyihiin dad Soomaaliyeed waaye waa in laga siiyaa qaybta ay ku leeyihiin scholarship kala helo. taas ayaa keentay waxaan aaminsanahay haddana in scholarship kasto oo la helo dawladda si dawladda u ballan qaaday in qaybta ay ku leeyihiin xeryaha qaxootiga kuwa ka soo baxay iskuulaadkooda iyo kuwa kale ka soo baxay magaalooyinka dugsi sare ku yaal Nairobi iyo meelaha kale Mombasa iyagana xaqooda inay heli doonaan. arrinta kale oo ah scholarship-ka aniga waxaan aaminsanahay absaaqna uu sheegi doonaa in scholarship haddii dawlad ama wadan ay bixiso inuu yahay full scholarship
in ayaga ay bixinayaan haddii ay jiraan mataqaana scholarship la leeyahay mataqaana lama bixin karo waa arki doonaa laakiin hadda aniga maxamed cali ahaan waxaan aaminsanahay inay tahay full scholarship idinka gaar ahaan weliba ardayda maxaa la dhahaa xeryaha qaxootiga anoo ku hadlaa magaca dowladda si gaar ah ayaa arrintiina loo gelayaa haddii ay tahay tigid ha ahaato haddii wax kale ahaato dowladda kumeel gaarka iyada wax ka qabanayso marka arrintan aad dhahdeen waa ka laabanaynaa scholarshipka waxaan idinka codsan lahaa inaad ka laabataan scholarship school baa u hesheen scholarship baa hesheen inaad ka faa'iidaystaan wixii jiro ama wixii aad u baahan tihiin anagaa joogna dowladdaad joogto waa soo codsan kartiin haddaa u baahan tihiin baabuur haddaa u baahan tihiin haddaa u baahan tihiin tigid haddii kale u baahan tihiin waa soo codsanaytiin markaasaa dhigaya saddexdii sano ee lasoo dhaafay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ayaa kumanaan ardaya oo ku noolaa gobolada dalka iyo dalalka deriska ah guddoonsiisay deeqo waxbarasho oo ay dowladdu ka heshay qaar ka mid ah dalalka caalamka imtixaano cadaalad ku dhacay ayaana lagu xulay ardaydaasi oo ku meel maray dhibcihii ay keensadeen dalal kala duwan oo caalamka ahna iminka duruus ku qaadanaya weliba si bilaasha yuusuf sheekh ciise